Bismillahirrahmanirrahiim. Maansadani waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu dhalinyaradeena u geystay aafada tahriibku. Waana tan maansadii maqal haboon. Haddaan gabay soo hilaadsho, hiddaha suugaanta baadho, hawraar wacan soo habeeyo, hordhaca maansada iftiinsho, hanaan wacanow hadraawi, adaa herariya Hargeysa, burtida heensan yaqaana, hiiga meeshaad ku hayso, hubaashi lagu hirtaaye, anuu heelada xaggaaga, halqabsi kugu haybinaya, hibada kula qaybsanaya, higaada haddaan habkeeda, ifnaan hadalkayga muujo, hadafka maansada haleelo, barbaartii Hargeysa joogtay, kuwii hoosada berbera, hilaad wacanay tog dheer, sanaag heemaal qurxoon, dhammaangaygeenna hooyo, halyeeyada aan ku faano, maxaa hagardaamo baday, badweyn hilibkooda wadhay, maxaa hooyooyin ooya, markay hanadkeedii weyday, baroor iyo hoog la meera, adaan daal iyo hayaan, marnaba hawdgeel ku raacin, haraad iyo gaajo arag, Hargeyso hadana jooga, naftaada maxaa halaagay, hafiga saxaraha ku mariyay, holaca tiribali ku geeyay, humaaga baddaa hiraysa, habeen dame lagu masaalay, hankaagii maxaa ku riday, hiirtaayo rafaad horseeday, hantaaqa maxaa ku baday, hankaagii hoosu liicshay, haween waa hilib bisile, maxaa curubtii hablaha, la moodi daruur hilaacday, amaba dayaxeega jooga, hubaal qurux loo hawoodo, hagaag rabbigeen u siiyey, maxaa haadaan ka tuuray, hogaanshay horor u geeyey, naftaada adaan halaagin, dalkaaga adaan hilmaamin, hamiga Yurub hiigsigiisa, tahriibka dhibkaa hagoogan, hoqdiyo hooyo oohinteeda, habaarka ha dooranine, dalkaagaa lagu hodmaa, hurdiyo hooy lagu gam'o, dalkaagaa laga helaa, hablaha qalanjooyinka ah, quruxda hoobaan u eeg, dalkaagaa laga helaa.